hooyo xabiiba maxamed cumar waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ku nool magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. hooyadani ayaa kala hore ganacsigeedu waxa uu ahaa iibinta qaadka iyadoona haatan bilowday ganacsi cusub oo ka duwan kii hore. xabiiba ayaa waxay noo sheegtay in markii ay ka ganacsan jirtay qaadka ay dhaqaale badan heli jirtay, haatan se dhaqaalihii ay ka heli jirtay qaadka aanay kani ka helin, balse ay iyadu dooratay inay iibinta qaadka joojiso, ganacsigan cusubna ay bilowdo. xabiiba oo aan kula kulannay isla goobtii ay qaadka ku iibin jirtay oo ganacsi cusub ku bilowday ayaa waxa ay faahfaahin dheeraada naga siisay sababaha ku kalifay in ay qaadka iibintiisa joojiso una beddesho iibinta qudaarta noocyadeeda kala duwan, haddii ay muuska tahay, xabxabka tahay, bartiiqa tahay, liinta tahay iyo qudaarta kale ee dadku u baahan yihiin. hooyo xabiiba oo aan waraysi gaara kula yeelanay goobteeda shaqo ayaa waxaana dhex martay sheekadani. hooyo markii hore ganacsiga aan wadi jiray jaadkaasna oo markii hore wariyuu idin sheegay baan ahaa. imika haatanna intaa wixii ka dambeysay muddo 2 sanadood khudraddaas aan dul fadhiyaa gobolka Awdal ka soo baxda. khudraddaasi noocyo badan bay iskugu jirtaa, muuska iskugu jirtaa, liin bay iskugu jirtaa, saytuun bay iskugu jirtaa, bartiiq bay iskugu jirtaa, waxaaba wadanka bixiya. marka waxaan go'aan ku gaadhay inaan waxa Itoobiya naga soo galay ee ragga ganacsiga lagu leeyahay aan waxba faraha ka qaadan go'aansaday. marka khudradda wadankayga ka soo baxaysa ee ceelasheeda ka soo baxaysa inaan iibiyo iyo go'aankaygu ahaa. inkastoo iga lacag badneed aniga markaan jaadka iibinayay uu hadda dee waxoogaa dhaqaalahayga isdhimay, imika waxaan jeclaystay inaan khudradayda go'aan ku gaadhay inaan wixii wadankayga ka soo baxaan iibsado ee horumara inaan ka shaqaystaan doonayo. waayo bishii Ramadaan baa nagu soo socota, dadkuna jaadasha way iska daayaan, khudradahaasana aad caruuraha loogu guraa. marka waa inaan halkaa la igala socdo. sababta kugu kaliftay inaad qaadka joojiso oo bilowdo iibinta khudradaha wax wadanka Soomaaliland ka baxa ma horta khudradani jaadkan meesha wadankan ku iibin jirnay waa wax dal kale ka soo bax. waad ogtahay maalin 24 saac gudahoodba waxay leedahay Itoobiya maantana mudaaraad baan leenahay oo waan joojinay jaadkii bay leeyahay. laakiin kari maaha baabuurkaygii baa raran 24 saacba daqiiqad buu raran yahay. habeenkii 2 jeer buu khudradda soo dhig, aroortii 3 jeer buu iyo ka soo noqonaya. marka waxa weey wax wadan kale ka soo gala adeer xoolahaaga ma anu marka khudradayda wadankayga ka soo baxda gobolka Awdal ka soo baxda gaar ahaan gobolkayga ka soo baxdan jecelahay 4 saacna aanu dadaalay inaan iibiyo oo wadankayga wax uga soo saaro. salaamu calaykum. marka ujeedadaadu waxa weeyaan inaad yaani wixii wadan kale u lahaa anu wuxuu wadan kale lahaa waa ka baxaan ku haruurkii baan beeranaya, qamadigi baan beeranaya, sarreenkii baan beeranaya, heedii baan beeranaya, beertaydii maanta iga baxay 120 kiish baa iga soo baxay maanta haruurkii qamadiga iyo sarreenka iyo heedda geedgaabku waa inta arabixi iyo haruur 200 kiish baan maanta qot wana ii soo baxeen. waana ku qanacsanaa booshay igu jirtaa, mar laxoox baan ka dhiganaya, mar shuuraan ka dhiganaya, mar karis baan ka dhiganaya, mar faracad baan ka dhiganaya. maxaan ka rabaa marka Itoobiya maxay ka san xoolahaygii baan la soo baxayaa. ma jiraan duruuf kale oo yaani aad leedahay way u kalifeen qaadka joojiso? duruuftii markii hore igu kalifaysa beertayda aanu ma qodan jirin, laakiin imika qadaal baan samaystaan ku cagaf bay dur taagan oo waan qotaa. wixii ilaahay ii keenana wuu iga soo baxa sida maaragtay wajaalo kale haruudhadu uga baxaan Soomaad arag taas aniga igu soo baxay. cagaf baa ii tuntay $100 la iguma wada tumin. wixiiba haruurkii waan soo xiristay gurigeygina uu rasaysan yahay. maxaan uga baxan marka Itoobiyana uma baahni, Mareykanna uma baahni, waxna uga ma baahni. dalkayga wixii yaalaan anu aaminsanahay $100 baa la ii soo diray ku leedahay islaanta. $100 in la ima soo diray cirina ima maqna. caruurtaydina way wada joogtaa, dalka waxay ka barteenna way cunaan, habeenkii garow bay cunaan. waan ku qanacsanahay anu, laakiin ninkii ku qanacsan baan leeyahay wadankaaga ku qanac wixii ku yaal. laakiin dad badan baa jira oo noloshooda ku tiirsan tahay qaadka oo yaani maalin walba ay arkay waxa intaasoo kiilo baa la keenaa. waan ku soo sheego waxaan ku dhig 90% jaadka horumar baa laga gaadhaa baan ku. maanta waad walwalaysaa, caawa wixii ka soo galay waad ka walwalaysaa, barina waad ku faraxsantahay, waad ku qanacsantahay inaad baabuur iibsataa, baad ku qancaysaa baan ku. laakiin adigu ma lihid in qayrka ayaa la soo bax. laakiin jaadkan anu ma lihi mana beeran ya aniga meesha la yiraahdo haadaamo igala dhacay jaad dameeraan ku soo qadimay waan iibsado ganacsi baan ka qaaday. ninka jaadka iibiya caruur buu ku koriyaa, naagta ka sii qaata caruur bay ku korisaa, ta ka sii qaata caruur bay ku korisaa.
intuba inay carruur ku koriyaan la iskuma hayo wax tarin uu ka soo galay la iskuma hayo laakiin la iskuma haleeyo waxaanad lahayn ani beertii aabbahay iiga tagay baan isku haleeyo on leeyahaan ku tanna walaalkayba la soo baxo waan garanayaa geerkii beertay taala 4 jeer buu baabuurka habeenkii soo galaabaan ku dhoon ka qaada marka anaalaan ku dhulkan المهم دول كاغا وحي كسو بخاد ادو ليدا waxay beeri ku siiso bahdaa kuma siiso kor waayela waa wada indho waayel afkaaga kala qaadan tiriya lama yidhaahoyo waan ka waaya aragsanaay ka waran yani shadii kula qabtay markay ay qaadka yimaayeen markali ay isbedel ku arkeen inaad qudaar keento kala arinta ka waran yada afar wax la wareysanayaa 15 cish ka waran taay ugu badnay ka waran maanta maxaa soo kordhay wixii soo kordhay ba dhankaaga qabsanay dhankaaga qabso jaadka aad baa la iga ibsanay jaadkana 3 nooc baan iibinayna daba musbaar malaha ragga qaaliga iibsadaan waan iibinayna jabisna waan iibinayna ku kala oo cruise la yiraahdo baan iibinayna 4 nooc buu leeyahay jaadka taajar uu leeyahay taajar raawada buu leeyahay xaaso dhan maad u taqaanaado aad ma ka daba ana ku waramaya intaasoo dhan booyo waan soo iibiyay كل واحد jirtay aniga iyo beeraleyda aan cidiba noo dhaxan jirno aanu ka iibsan jiray baa jirtay oo iyagu ii keen jireen annagu iibiyana oo dilaal aha baa jirtay oo aanu ka dhex goosan jiray aanu wixii aan shaqaystay waxaan saartaba inta baan oo dilaal waa baa jirtay maxaa se kalifay jaadka aniga baan ku yiri waan kuugu daro wuxuu ku dhilaa lacagta soo galeysay marka ilaa xad way lacag badan bay ahay laakiin lacagtii aanu ma lihideen nin qayr ka caawa intuu aqalkiisa ka soo kacu soo feedhu soo saliidaystay leeyna labada midood imikadana kuugu soo dhiibaya hebel ama moobilkaaga kaaga uu igala tagay maqalkiiba uu isbuuxin waa anoon cashaynin baaban iska hooyanay xiyala badan buu leeyahay jaad xiyala badan uu soo galinayaa jaad xiyalaha badan uu soo galinayo waxa weeye distidan ka sii buuxsan jirnaa oo waan ka karsan jirnaa oo ka dhargay هذا دم قوت كم تسلينين يقول هاون بالله أنا كمان كلنا ده نقول هاون بالله عبادات سبب ولا نقول يا ده أنا كنا نقول هنينو سنا نقول هذا مركا وحياله هنيم لكن لا نقوم يش يعني تقاريه هو النسوق قليل لكن مر هدان دولة السوماليلاند مشار كله يوم كوش شيء نك أن إقبانا ومشار كقادم دي أنا كم مسكين واحد يقول يلا نامسنا عشان كي يجانا وان كرسنا waa nuux kadiye TV-ga caalamiga Star Burama